muddo 2 toddobaad dalku ma lahan ra'iisul wasaare haysta sharciyad dhammaystiran waxaana shaqada ra'iisul wasaariga kalsoonida lagala noqday sii wada ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya golaha xukuumadda ee xilgaarsiinta waxaa shaki la geliyay sharci ahaanshahooda maadaama aanay haysan kalsoonida baarlamaanka sida sharciga dastuurka ku meel gaarka ku qoran ee uu qeexayo qodobka 103 wuxuu leeyahay xilsihaynta xukuumadda xilsihaynta waa xukuumaddii hore ee baarlamaanku kalsoonida siiyey iyo ra'iisul wasaarihii hore ee baarlamaanku kalsoonida siiyey kuma qorna dastuurka ku meel gaarka ah ee hadda aan haysano meel madaxweynuhu awood u leeyahay inuu ku magacaabo kusime ra'iisul wasaare kuma qorra yacni ra'iisul wasaare wuxuu xil ku wareejin karaa cid baarlamaanku kalsoonida siisay cid kale xil kuma wareejin karo marka waxaad moodaa yacni wax aan haba yaraatee yacni cid qeexi karta aysan jirin inay meesha sharciyadda looga soo daliishaday inuu ra'iisul wasaare sii wado oo asaga sharciyadiisii doodi ka taagan tahay haddana inuu go'aamo masiiri ah sida aad aragteen qoraalladii bulshada rayidka oo sheegaya hay-adaha yacni xukuumaddan xilsii hayntu ay ku dhaqaaqday oo ah hay-addii batroolka iyo hay-addii maaragtay ugu muhiimsaneed garsoorka marka runtii waxaan dareemaynaa ka odayaashii bulshada rayidka ahaan waxaan dareemaynaa in waddankii uu noqday yacni political football lagu cayaarayo mararka qaar aan haba yaraatee moraalkii shacabkana la tixgelinayn yacni niidsamadii qaanuunkana aan la ilaalinayn dooda la xiriirta doorashooyinka dalka waa mid weli taagan mana jiro go'aan rasmi ah oo laga gaaray inkastoo guddigii farsamo dhismihiisa la dhammaystiray lana filayo inay kulmaan baarlamaanka Soomaaliya qudhooda waxaa lagu xamanayaa inay doonayaan ku dhawaaqidda muddo kordhin hay'adaha kala duwan ee dawladda ah taasi oo xaaladda sii murjin karta haddii aan la helin heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay waxaa muuqata in dalku wajahayo xaalad adag oo yeelan karta saameyn laba dhinaca waxaase miisaanku uu leeyahay dhinaca walwalka iyadoo geedi socodka doorashooyinka dalkuna uu mugdi weyn ku jiro madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa mar kale ku celiyay in shirka dhuusamareeb uu waqtigiisa ku qabsoomi doono waxaase su'aal ay ka taagan tahay suurtagalnimada shirkan maadaama ay isbedeshay xaaladii hore waxaana ballansan oo madlan gobashii dhuusamareeb 3 oo ay tahay in go'aamo wax ku ool ah oo waqtiga hadda lagu jiro iyo arrimaha Soomaali hor yaalla looga tashado lagu xalliyo lagu gaari lahaa ayaa noo madlan noo taalla sad ogtihiin 15 bisha August ogashaas 15 bisha August ay ku asaysan tahay la isugu ballansan yahay dhinacyada oo dhanna waa la xiriirnay waana rajaynaynaa in la taxgeliyo oo la dhowro oo wax kasta wax u dhibi kara laga fogaado oo reer galmudugna gobashooda la taxgeliyo Soomaalina maslaxadeeda iyo taladeeda la taxgeliyo November wixii ka dambeeya waa inuu dalku yeeshaa baarlamaan cusub ama la helaa isbedel kale sababtuna waxay tahay in xildhibaanada baarlamaanka ee hadda jira ay ka dhamaanayso muddo xileedkoodii dastuuriga ahaa ma cadda sida uu noqon doono muuqaalka siyaasadeed ee dalka bilaha soo socda waxaase hogaamiyaasha dalka hor yaalla go'aamo masiiri ah oo dalka ku jihayn kara mustaqbal ifaya ama mid madow Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho